I'm Mike Nithivrianakis, British Ambassador. Mike magacaygu waa Mike buu yidhi Georgianakis British Ambassador waxaan ahay safiirka saddexaad ee marka Ingiriiska ee marka anarchist waxaa loo yaqaanaa qofka dimuqraadiyadda dhexda ka ah ee dimuqraadiyadda horumarinteeda markaa ka shaqeeya. I'd like to make this statement. I would like to make this statement. I would like waxaan jeclaan lahaa to make markaa this statement inaan warbixintan idiin soo gudbiyo buu leeyahay markaa. Behalf of international partners. On behalf of international partners anigoo ku hadlaya buu yidhi markaa afka asxaabta caalamiga. The international partners have closely followed the ongoing electoral process in Somaliland. Marka wuxuu yidhi international partners asxaabta markaa caalamka ka timi have closely followed waxay si dhow markaa u raaceen oo u eegeen the ongoing electoral process nidaamka doorasho ee ka socda Somaliland ayay si dhow u eegeen buu yidhi markaa. And leading to the election of Somaliland's president and political parties. Leading to the election of Somaliland's president buu yidhi. Leading to waxay markaa keentay buu yidhi the election of Somaliland's president doorashada madaxtinimada ee Somaliland ka dhacaysa ayaa keentay buu yidhi indhayntan iyo eegistan. weliba doorashadu kaliya maaha madaxtinimee waxa raaca sidoo kale ururada siyaasadda. Marka ururada siyaasadda maxaa loo yaqaanaa political parties ayaa loo yaqaanaa. A delegation of international partners led by ambassadors and envoys from several missions. A delegation of international partners weynayda marka delegation marka wafdida wuxuu wafdida marka of international partners wafdidan ka timi axsaabta caalamka wadamada ay Somaliland saaxiibka marka la tahay led by ambassadors kuwaas oo ay marka hogaaminayaan axsaabta marka Somaliland saaxiibada la tahay oo ay hogaaminayaan led by ambassadors dad marka safiirra ah and envoys from several missions dad indhayn sameynaya oo ka yimi qorshayaal kala duwan halkaas oo ka wada marka maxay wadamo kala duwan iyaguna ka yimi oo de qaarna waa safiiro qaarna waa qaar u yimi indhayn marka. Visited over 30 polling stations in Hargeisa, Boroma, Berbera and Gabili on 13 November 2024. Visited over 30 polling station kuwaas oo markaa booqday 30 goobood wax ka badan oo marka in Hargeysa gudaheeda ah Boroma, Berbera and Gabili. Berbera iyo Boroma iyo Gabili intaas way booqdeen meelo ka badan markaa 30 goobood oo indhaynteedu markaa ku tageen. halkan dambe markaa wuxuu ku sheegayaa xilliga ay tageen xilliga markaa wuxuu yidhi on 13 November 2024 markaa 13 November 2024 ayaanu markaa booqanay buu leeyahay doorashadan dhacaysa maadaama uu statement iyo warbixin uu bixinayo wuxuu raacinaya waqtigii markaa to reaffirm their support for the democratic process. isagoo hadalkiisa si wataba uu yidhi to reaffirm their support waxaanu markaa u nimi oo dadka indhayaasha iyo safiiraduba ay u yimaadeen to reaffirm say dib ugu sii adkeeyaan affirm waa adayg marka reaffirm waa dib adkayn inaanu dib u sii adkeyno wili taageerada aan u muujinayno for the democratic process hanaanka ay u socoto dimuqraadiyaddu marka ay Somaliland uga socoto. The international partners commend the National Electoral Commission. The international partners axsaabta markaa caalamiga buu yidhi the National Electoral Commission commissionka doorashooyinka qaranka ee National Electoral Commission qaana oo ay noqonaysaa macnaha guud commissionka doorashooyinka qaranka ayaa markaa ay ku bogaadinayaan oo ay ku amaanayaan maxay hadaba for conducting a transparent voter registration and candidate nomination process. For conducting a transparent waxay ku amaanan yihiin markaa in ay qabanayaan doorasho transparent loo yahay loo wada siman yahay markaa doorashada loo siman yahay buu yidhi haddaba voter registration in qofkii codbixiya ahaa lahayo diiwaangelintiisii and candidate nomination process habka magacaabista musharaxa marka oo sidaynu ogsoonnahay qofkii codbixiyaa uu diiwaan gashan yahay musharaxii systemkiisa iyo nidaamkiisa oo dhan waa la hayaa waa doorashada marka ay qabanayaan komishiga doorashooyinka qaranka ee uu ku amaanayo markaa and for its ongoing efforts
to maintain independence and impartiality, both essential for public confidence and trust in the electoral process. And for its ongoing efforts to maintain independence. And for this ongoing wuxuu yidhi markaa dadaalkooda aan kala joogsiga lahayn effort waa dadaalka ongoing na soconaya waa dadaalkooda aan kala joogsiga lahayn to maintain ay markaa ku ilaalinayaan independence xorriyadda ayuu ka hadlayaa markaa wuxuu ka hadlayaa komishiga doorashooyinka qaranka ayuu ka hadlayaa markaa ayuu yidhi waxay ku ammaanan yihiin maxay in meeshii kalsoonidii ay ilaalinayaan oo kalsoonidii waxay ilaalinayaan ay tahay wuxuu sii raaciyay markaa an impartiality both essential for public conference and impartiality wuxuu yidhi markaa eexla-aanta eeg laba erey buu isku qaadaya labada erey ku hadla wuxuu yidhi in markaa komishiga doorashooyinka qaranka ay ka shaqeeyeen kalsoonidii iyo maxay impartial eexla-aantii both labadaa arrinba buu yidhi waayo wuxuu yidhi markaa labadaa ereyba amaba labadaa qodobba essential for public conference waxay muhiim u yihiin kalsoonida dadweynaha ayay muhiim u yihiin marka public in meesha markaa laga helo kalsooni iyo eexla-aani dee waynu wada ogsoonahay oo doorashada waxay qabsoonaysaa si qurux badan oo qof waliba ku dhiiranayo maantana waxaynu ogsoonahay doorashadana si fiican inoogu qabsoontay alxamdulilah ilaah baa ku mahadle dee waxaynu maanta ku faanayno oo horumar inoo ahna ay tahay sidoo kale wuxuu sii raaciyay markaa wuxuu yidhi antrust iyo kalsoonidiba buu yidhi in the electoral process habka doorashooyinka muhiim bay ka yihiin in conference la helo kalsooni in conference la helo kalsooni trust aaminaadii la helo iyo in maxay la helo impartial saddexdaasuba waa ka muhiim marka doorasho la joogo dee waanay ku ammaanan yihiin buu leeyahay waa sida ay doorashada markaa u qabteen komishiga doorashooyinkeena qaranku way ku ammaanan yihiin buu yidhi Somaliland's democracy, like all democracies, relies on giving politicians and parties the chance to take part in free and fair elections. wuxuu yidhi markaa halkan Somaliland's democracy like all democracies Somaliland dimuqraadiyadda ka jirtaa buu yidhi like all democracies sida dimuqraadiyadaha kaleba relies on waxay ku tiirsantahay markaa oo ay ku xidhan tahay yacni markaa wuxuu ka wadaa relies on waxaa laga doonaya markaa dimuqraadiyadda Somaliland sida dimuqraadiyadaha kaleba lagu doonayo giving politicians inay siyaasiyiinta and parts iyo xisbiyadaba inay markaa maxay siiso the chance to take part in ay siiso markaa fursaddii markaa to take part ay kaga qayb qaadan lahaayeen in a free and fair election doorasho xor iyo xalaala marka halkan wuxuu inoo sheegayaa dimuqraadiyaddu sideedaba inay ku salaysan tahay in la helo doorasho xor iyo xalaala oo qof waliba codkiisa uu ku dooranayo cidda uu markaa rabo It is the voters who ultimately will decide who will govern Somaliland. It's the fortress waa in buu yidhi dadka codbixiyaha ama dadka codbixiyayaashaay should ultimately si awood leh waa inay markaa will decide ay u go'aamin doonaan who will govern Somaliland cidda maamuli doonta Somaliland The international partners met with all three political partners, urging the presidential candidates and their supporters to accept the election results. wuxuu yidhi international partners axsaabta ka socota caalamku met with all three political partners met with markaa waxay la kulmeen buu leeyahay all three political partners saddexda xisbi amaba saddexda siyaasiba ee madaxtinimada u tartamaya saddexdaba way la kulmeen buu yidhi urging the presidential candidates wuxuu way la kulmeen markaa axsaabta caalamka ka socotay saddexda xisbiba urging iyagoo markaa ku dhiirigelinaya marka ereyga urging waa dhiirigelin marka waxay dhiirigelinayaan oo ay dhiirigelin u sameeyeen saddexda xisbiye ku tartamaya markaa madaxtinimada markaa presidential candidatesna waa musharaxyadii and their supporters iyo taageerayaashoodaba markaa to accept the election results to accept markaa inay aqbalaan the election results natiijooyinka ka soo baxa doorashada marka halkan wuxuu ka wadaa oo uu ina leeyahay saddexda xisbiba waanu la kulannay waananu la hadalay waxaananu kala hadalay in ay maxay sameeyaan in ay aqbalaan natiijada ka soo baxda doorashada iyaga iyo taageerayaashooda marka waanu sheegnay in taageerayaashan ay ku qanciyaan in natiijada ay aqbalaan
They called on all parties to uphold peace and public order. wuxuu yidhi markaa they call it an all parties waxay u yeedheen dhammaan ururada markaa doorashadu waxay doorasho isku sidkan markaa sidoo kale waxaanu iyagana la hadalnay buu leeyahay ururadii baanu si gaara ula hadalnay oo aan u yeedhnay markaa waxaanu kala hadalnay to uphold inay kor u qaadaan oo ilaaliyaan maxay peace and public order inay ilaaliyaan nidaamka guud public order waa nidaam publicna si guudin weeye emphasizing that respecting the rule of law is essential to honouring the will of the voters. emphasizing buu yidhi markaa annagoo adkaynayna oo ku adkayna markaa ururada iyo qolyaha madaxtinimada u tartamayba that respecting the rule of law inay ilaaliyaan xeerka sharciga markaa qodobkan dambena wuxuu ka wadaa rule waa xeerkii law markaa waa sharciga law baa lagu dhawaaqayaa is essential taasoo lagama maarmaan u ah markaa to honoring inaynu markaa sharafno the will of the voters rajada markaa codbixiyayaasha oo qofka codbixiyaha rajadiisa in la maamuuso oo la sharfayo waxa weeye waa in codkiisa uu si xor iyo xalaala u bixiyo We wish to congratulate Somalilanders for exercising their right to vote peacefully and responsibly on 13 November. we wish to congratulate wuxuu yidhi inaanu u hambalyeyno oo u tahniyadayno ayaanu rajaynaynaa Somalilanders dadka Somaliland markaa u dhashay for exercising in ay markaa gudanayaan your right to vote xuquuqdooda ay markaa ku codaynayaan si markaa maxay ah peacefully si nabada bay markaa ku gudanayaan xuquuqdooda inay codkooda dhiibtaan and responsibly iyo si markaa mas'uuliyadu ku dheehan tahay qof walba si mas'uuliyadu ku dheehan tahay ayuu codkiisa u dhiibanayay qolyahan waxaan dhayndaynaya yimi aniga laftarkayga waanu kulannay waanu is aragnay goobaan markaa ka shaqaynayo aan joogay maalinkan markaa codbixinta si qurux badan oo wanaagsan ba dadka codkooda u bixinayay u dhiibayay saasay u eegayeen markaa waa kuwa ka warbixinaya on 13 November wuxuu yidhi markaa 13 November codbixinta sidaas ayay markaa dadka codku u bixinayeen mas'uuliyadda iyo nabadda ku dheehan tahay We stand ready to work alongside Somaliland to further strengthen democracy and accountability in the future. halkanna markaa wuxuu yidhi isagoo hadalkiisa hore sii wata we stand ready to work alongside Somaliland we stand ready waxaanu si diyaara u garab taaganahay work alongside inaanu ka garab shaqayno ka dhinac shaqayno markaa Somaliland aanu la shaqayno to further strengthen democracy si aanu dimuqraadiyadda kor ugu sii qaadnay markaa yidhi strengthen waa wixii la sii awood siinayo markaa kor loo sii qaadayo furtherna waa intaa inka badan an accountability individual iyo ku xisaabtankooda xagga mustaqbalka ee dhanka dimuqraadiyadda inaanu kor u sii qaadno markaa accountability markaa waa xisaabtanka My name is Steen Anderson, Danish ambassador. Allow me just to add one or two personal quick reflections. First of all, wuxuu yidhi my name is Steen Anderson, Danish ambassador. waxaan ahay anigu safiirka ka socda dalka markaa Denmark qofka Denmark u dhashay baa loo yaqaanaa Danish markaa magaciisana waa ka inoo sheegay muxuu markaa intaa raacin doonaa wuxuu yidhi allow me just to add ii ogolow inaan ku daro one or two personal quick reflections inaan ku daro ii ogolow falcelin degdeg ah oo shakhsiyan markaa shakhsiyan falcelin degdeg oo aan ka samaynayo wixii aan arkay ayuu yidhi markaa first of all ugu horreyn buu yidhi markaa it was an honor to be here for the election day yesterday. it was an honor sharaf bay aniga ii ahayd buu yidhi markaa to be here for the election day yesterday inaan shalay halkan joogo oo doorashada joogayay sharaf bay aniga ii ahayd buu yidhi We got the chance to visit many of the polling stations in Hargeisa and across the country and seeing the will and the ownership of the people of Somaliland. wuxuu yidhi we got the chance waxaanu helnay fursaddii markaa to visit aanu ku booqannay many of the polling stations waxaanu helay chanceska aanu ku booqannay goobaha codka lagu bixinaya in Hargeisa and across the country ee Hargeysa markaa ah iyo across the country iyo miyiga meelaha miyiga and seeing the will annagoo markaa arkayna buu yidhi rajada and ownership iyo lahaanshiyaha markaa of the people of Somaliland
iyo dadka Somaliland markaa rajadooda. For democracy was inspiring. For democracy was inspiring. Markaa waxaanu dhiirigelinaynay buu yidhi dimuqraadiyadda oo heshay markaa dhiirigelin. Thank you for that. And let me just repeat the point. We, of course, also expect, on that note, everyone to respect the outcomes of this election, whatever they be. Thank you for that. Arrintaa waad ku mahadsantihiin buu yidhi. And let me just repeat the point. Ii ogolow buu yidhi markaa inaan ku celiyo markaa qodobka. We of course buu yidhi dabcan markaa also expect on that note waxaynu filanaynaa note-ka ama warbixinta markaa ku dhawaaqidda codka buu yidhi markaa taluu markaa bixinayaa ee u fiirso talada uu bixinayo. Everyone to respect qof walba waa inuu ixtiraam muujiyo oo ka muujiyo dhanka the outcomes of this election. Natiijada doorashada ka soo baxda waa in qof walba ixtiraam muujiyo hadday dhan tahay madaxtinimadii iyo dhowrkii ururadaba. Warafatay B wax kastoo ay noqoto. Turjumaadeeni halkaas ayay inoogu soo afmeerantay. Waxaan rajaynayaa inaan insha Allah soo badin doono muuqaalada sidan oo kale dhanka doorashooyinka u badan hadday tahay Trump iyo Kamala iyo kuwa kale la halmaala. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah idinkuna inaad hadday tahay like aad muuqaalka saartaan, hadday tahay subscribe aad saarato kanaalka, iyo sidoo kale inaad u share garayso asxaabtaada danaynaya dhanka luqadda Englishta. Qaabkana waa qaabka ugu fudud ee uu qofku ku baran karo dhanka wararka iyo warbixinada oo qofku markuu ka soo gudbo levelka koobaad iyo ka labaad waa qof la jaan qaadi kara heerkan. Waxaan intaa markaa raacinayaa in laga raali ahaado haddaan meelaha qaar dee Soomaali ahaan si aan u turjumayo aanay ereygii ku munaasibka ama saxda aanay ahayn. Marka waa idin salaamaya dhammaantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.